waa soo aruurinaya marka 3 daqiiqo kale aan ku darayaa adi ilaa 4 daqiiqo waxaan marka hadda ka hadlaynay qaabkii arintaas dhanka shaqaalaha la leeyahay yani sanadku markuu dhamaado baa waxay siinayna marka waxay sameeyaan aan dhameystiree waxay sameeyaan marka sanadkii dhamaado oo qofkii uu isleeyahay wax uun hel bal mushaar yar baa qaadanaysay wax uun ku qabsan kartid ama xataa business yar ku bilaaban kartid ama waxa leeyahay shirkadii way qasaartay sanadkan faa'iido fiican ma soo xareynin marka waxba ma lahayo raali ahaada mida kale waxay kala sameeyaan zakawaadka kale dhahan waa siinayna laakiin zakawaadka waxa laga yaabaa kambariga wax ka bixi kara wax yar inay yihiin shaqaalihiin inuu badan yahay sanadkii dhan qofka waxa laga yaabaa in la yiraahdo $100 ama $200 oo zakawaad ku soo aad uu sanad sugayay isdhahay wax fiican baa helaysaa marka taasoo kale aan ma baqaw zakawaadka in shaqaaluhu xuquuq kugu leeyahay ma ahan zakawaadka waxa iska leh masaakiinta iyo dadkaas iska leh in loo daayo kale culimadu waa la siin karaa bay yiraahdeen dibna mar waa la siin karaa laakiin ina masaakiinta kala siisid ayaga laakiin xuquuq businesska ugu ogolaatid baana ila quman marka waxyaabaha waxaan ku soo xoorinayaa mawduucan walaalayaal in dadka ganacsiyada iska leh ay si waafi ah u fakaraan si aqli ku dhisan aysan ku qasbin dadkaas inay shaqooyinkooda ka tagaan inay inta urur samaystaan la yiraahdo qof shaqeynaya male khaas dadka wadankan way awoodaan Soomaalidu kale waa iska tacadin kartaa waxa laga yaabaa wadankiisina ma joogo wadanka xataa waxa laga yaabaa sharci ku joogin qaxooti iska diiwaan gashnayn sharci wadankan uu sahaysan deganaansho uu sahaysan laakiin dadka wadankan u dhashay ugu waxa jira hay'ado badan oo shaqaalaha consultancy oo la taliya oo maaragtay kala hadla yani qaabka xuquuqdooda ku dhacsan karaan kootu baa jiro shaqaalaha wadanku ku midaysan yahay ururay samaysan karaan waxyaabo badan bay ku qaadi karaan South Africa hadda waxa la ii sheegay waxyaabaha inta badan ka dhaca Soomaalidu ay dhexda isku keenaba maqlay aniga ma hubo xaqiiqda sababtuna waxay tahay waxa la ii sheegay sababtu inay tahay in ay istulminayaan dhexdoodii oo businesska isku falisayaan oo ay sameynayaan xataa dilalka qaarkood in qof walaalkiisa dukaan ka ag furanaya uu dilayaa wuxuu leeyahay meeshan ka guur anaa imide meesha hadaa timid business waa xore anigana imaade waxaan ka heli karaan ka helay iska kayda ma ogola uu dilayaa marka balaayi gangs buu adeegsanaya dadka la dilo ama qasheen waa laga yaabaa dadka meesha jooga inay wana beenin karaan wana diidi karaan laakiin wax uun baa ka jira dhibaatada marka meesha ka imaan soo weeyaan hadaa dulmi geysatid in adigana khatar badan kugu soo socoto arintaas waa in aad looga taxadaraa insha Allah mawduucan oo ah mawduuc aad u balaaran intaas ku soo koobaya ilaahay waxa weydiisanaynaa inuu na garansiiyo in dadka noo shaqeynaya ilaahay hoosteena geeyay inaana ku xadgudbin inuu na garansiiyo in dadkaas ay kamid yihiin qayb kamid ah businesskeena oo hadii aad khaladaad kula dhaqantid businesska ina khaladid ma jeclin laakiin hadaa dadkaas khaladaad kula dhaqantid ugu dibay ku keeni kartaa intaas ku soo koobaya jazaakumullahu khayr la wadaaga asxaabtiina dadka la wadaaga maxaan ku dhahayto gaarsiin inta gaarsiin kartaan ana waxay iga tahay balliqo anni walaw aaya dulmigaas dadkaas masaakiinta lagu hayo inaan maadaama aniga imana aysan shaqaalaysin lacagna ima siiyaan laakiin waxa laga yaabaa qof iga weyn ama iga baaxweyn haduu ka hadli lahaa inay wax uun ka qaban lahaayeen laakiin waxa ku kalsoonahay dadka muuqaalkan gaari doono inay faafin doonaan oo arintaas laga hadli doono oo laga jawaab bixin doono dadka wadanka joogana inay ka hadlaan arintaas ha ku qancin waa noolaanaysa waxa intimo weynaysid laakiin uu dulmiyaha ku qancin hatta waxaan kula talin lahaa hadii ay awoodid inaad ka tagtid shaqadaas saas ugu galay ka tag ilaahay baa wax ku irsaaqaya gobo Soomaalidu waxay oran jirtay inkastoo hadda aan ka tagnay dhaqankaas gaajo gobonimo leh waa ka fiican darag gudnimo leh waa inaan diidnaa niraahna aniga ma yeelayo waxaan $150 anoo Nairobi joogo kuma shaqeyn karo sheekh diid haduu waqti yar yahay ha laakiin waxa iga qaadanaysaa all my time baa iga qaadanaysaa from 6 to 6 baa shaqeynaya
subaxii ma nasan karo hal maalin ma nasto wallahi dukaamada waxay ii sheegayaan dharka gada islii xaafadda aan ku noolahay hal maalin off lama lahan jimcaha waxa la gaarayaa 12 marka masaajidka u socdo ama 11:30 waa la shaqeynayaa ciidaha lama nasto wallahi ina ciidaha la nasan يا رسول الله يعني قفك بن آدم وداليا حتى ممكن تبقى قف شقده وكتجيا أدينا ما بقف عصب إنه كوي ماله is not good for your business شقده هذا ما في عنا نكاسا قفك برتي عسى وحياة إنه كوك لو ذي أيها وحن لا هاي وح بلو وحون وح كيرنا كاسو قلنا على هذا اسكت إنا بلودد جزاكم الله خيرا وحيقي لسيني وحي تقول عليه وح أركي وعيه مرة وعيه رفتر كذا جناح ستارت كذا إنك واحد قد بعاني جماعة وجيت كيجو ولا الله يويه لكن وحربا إن لو ذا فائدة قفك شقالة شقينا ينا إنه وحون هلا قفك لو شقينا ينا أو بزنس يلا إسكاله هنا إنه أسوقنا وح فائدة لسكو فائدة تذكر إلهي بس بداي إلهي بس كو كاني إن أحسن قولك كليا نولانين وهدي معناه هذا أفريقيا وجيب ليبر يعني وأنا دينا عرنتاس هذا كي وحي معلومة وحي لقاها اللي وحي كم تاي وحن ليراد إنتانك يقفك ماشي وشقوينك كبر برانا يوكلاته إنه مددر يعني ما يوم بحي شركة وحي سميان بالي شقالة وما قرطان وحي سميان ما يوم إنتان بيكينا ضد إنتانو يعني شقالة دين برينا صدح بلود بيلو جوان إنتان كايكينا صدح بلود بيلو جوان ما بحيبه employment شقالة ومشار مصرية لا وقف صدح قفوا من الريسبشن السياحي من الغياب ونص كم من مشار السياحي مركو أنا أرنت أسكار هذا يعني كل يرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.